والله يا والله عوض مالك الله يفكسور هذه إذا درتين ولا إذا درتين عوض مالك توصل قلنا إذا درتين عوض مالك توصل قلنا اللايف لا بدي هذا عوان كاب شلون بيج كياهو ما تكلم بيج what the fuck man إذا اللي يسوق باي هذا ولا وان جانس وان جول واحد ما ذا دونك ولا هالقفو إذا كبدا سوق بنا ست استئة وهل يسكت ده على عوض ده هدي عوض صورة جلي ويايو habeen kala ka dhigayna idil hadii ay igu sheegay idil daaragtan ayo okay Soomaali هلا ebo okay miya اوكي واب اوكي وادواك ما كوسارا tubaka ha عن كذا حق كوسنه waa ii sheegtay waa ii ku saaranta ku saaranta ha ku dhahawe waxa ka kuusma u sii sheegay adana dhagmata عاد محبروين وسا walaadi tubakada waliga ma saartorto كان معاك سوق إلى الإسرائيل. هوا صار في حشيش تبع واي. أنا حشيش ما عبتها. ها. ما حكوا كيف أدو ويلي ريس أنا حشيش عبت. محدو يسامي داس. هذا مستقبل لا هنكرة أو وزير لا هنكرة أو ملح لا هنكرة أو سراكيل. إذا لي هاي سوقر أنت عليك بوجينا. أدو ولا وان كوانو يا بوجي معهن. يهو أدو مستقبل في عبد الله كله. أنا حشيش عبت حشيش سو إحنا الله سلقنا. راتك الصومال. كذا إيه فهم. أنا قبصة يا أنا وان برتانا لقبصة الصومال إيه كذا إيه أصعبت هذا إيه قرابة هذا إيه لما أنتوا في فيسبوك أقول يقاني مدري ما يعني إن الرياضات هاي مستقبل له حكى قصنا أصلا ده بركي مستقبل قيل كمية تواكدوا هاي قلتوني دا إذا استقالنا باي وانك عادي وبوس كجراني هذه قفكين لي يقعنو بشير كاي وكسر هذا قبيل واحد عسى أنا هدي ويدي عوض فصحة ما حد عسى أنا يودي قبيل يدودي معنا هنا قرندم سامان البعض محكوا كل فادي قرباء جوجين هذا كان معنا أبين وشيك تمام البعض هذا تسهبلو كانوا هرمودا دليل يحسكوا يقولوا ليش درادي معنا هرب أسبوعين أنا ضد سؤالك بقولي ما أنت أمر أجيب لك وسيرة واحد سؤالك لو إذا ما أنت لكن حالا لك الجواب adigo marka idil waa imaad adoo xashish cabaad marka aniga isha keenay mustaqbalkii waxa dawladdu ku haysto sabaad ku dil idil waa imaaday nin xashiisha cabaad ku dhahay wuxuu ku leeyahay kawran dawladdu maxaa ku maxraxay dadkeena waa iska calusay madax sare soo dhawo idilay finally waa ku soo fariistay ra'iisul wasaare isku balaya markan ku arko adiga ila madaxweynaha tahay إذا لا هرت وحنا ست توس حدا نولق دالع عن كرام نولق داون كرا عوان كيجا قاس كأه وأنا مركي يجوه رئيسي وأن عوان كيجا لايف كسوقله وأن في ليا إنه الشدية هاي سووسي شدنا هذا مركا ما دام بيج بقولكم كبدنا يكون جرتنا لايف كسوقله عن جعل الله أصحاب تيدا قاس كأه إن أي شرقيان سي هل كان ندك كلا ولد جان قادان لا هذا بيج يكون مغني ونسويه نصوص عنه إذا كتصل waa maasan tahay idil cabdullaahi farmaajo kusoo dhawow live-ka caawa waad ku maasan tahay waqtigaada qaaliga ah oo aan filaya inaad hooyo tahay sida aad noogu hurtay soo dhawow mar kale iyo mar kale aniga iyo saaxiibaday gabdho iyo wiilal oo Facebook live caawa ah waxay ku leeyihiin waan ku faraxsanahay idil sida commentiga aan ka arka haatan marka hore wareysigan wuu ka duwan yahay idil wareysiyadii hore lagaaga qaaday qadkan deen yar lagaaga leeyahay إدلي حتى علت كلا عثمان أقول ما إدلي إدل عبد الله فرماجو سفي أنا هو مغلاقات كاد استعمالي يسد وفيري لو حدا سواكم مغلا حدا سأوكيات سوى نكسنا كواركا على كمالا كل جنتا سوى على كمين عمل مالا وكودكت inaan ku maqlo ayaan ku maqlaa laakiin mararka qaar muddo in codkaaga aan si toos ah loo maqlin Japoso
aniga si wanaagsan ku maqlaa si fiican ku maqlaa okay haye adigu sana maqashaa hadda xagaag si fiican ku maqlaa si fiican ku maqlaa wareysiga uu ka duway wareysiyadii hore horta idil Cabdullaahi Farmaajo adiga iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma isku hooyatiin ma isku abwatiin magaca wadaagtaan waa u jeedaa ma isku hooyana ma tiin iska dami live-ka aniga iga daawanayso iska dami si toos ii dhigaysa abaya okay hadda ma maqashaa aniga waa ku maqlaa waxaan ku iri adiga iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isku aabo waa tiin oo waa ogsoonahay annaga isku aabis hooyana waa walaalkii ha imise carruuratiin oo aabba iyo hooyo dhaleen annaga waxaan nahay 5 wiil aniga 5 wiil adiga tiin maxaad kala weyntiin adiga Cabdullaahi Farmaajo maxaa idin dhaxay maxaa Cabdullaahi aniga aabbahay wuxuu dhalay 5 wiil asaga ani Maxamed isku bahabaan nahay hooyaday baa dhashay curadka hooyaday weeye marka waa walaal marka waa walaalka kugu hooyo kugu aabba ha saaxiibayaal soo dhawaada mar kale waxaan caawada martii inoo ah idil Cabdullaahi Farmaajo oo caawa Canada toos qadkeena Canada fadhiso si toos ah caawada barnaamijkeena uga qayb qaadanaysa idil walaalka kula dhashay markii ugu horeysay oo uu siyaasad ku fikiro waqtiga ahayd صح waqtigii ugu horeeyay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu siyaasad ku fikiro waqtiga ahayd محمد عبد الله فرماجي هرت walaalka ila dhashay boso waxaan u maleynayaa dhowr jeerna waan ka hadlay siyaasadiisa oo dhowr jeer waxaan u maleynayaa inaan inta uu wadanka hayay aan ka hadlayay maxamed farmaajo horta aanta loo dhiibay shacbiyada Soomaaliyeed dadka ku soo wacaya ku dhibayo ku dareema idil mar kale waxaan rabaa adoo mahadsan su'aalaha jawaabo kooban la inaa iga siiso si su'aalo fara badan caawada halkan isku weydaarsano waqtiga siyaasadda ay ku dhalatay aqoontaada ka aqoontaada maxaa Cabdullaahi Farmaajo siyaasadda waqtiga ku dhalatay inuu ku soo biiro maxamed farmaajo markii horeeto nin xun ma ahayn nin wanaagsan buu ahaa siyaasadda waqtiga ku soo biiraa ku yiri idil siyaasadiisa goorbay in uu siyaasi noqdo oo siyaasadda uu ku soo biiro ay ku dhalatay isaga markii hadda siyaasadda ku soo biiro waxyaalo badan baa iska bedelay waa ogaa wixii iska bedelay waa uu maan doonaa isaga goormo siyaasadda ku soo biiray wuxuu ku soo biiray maalintii Sheekh Shariif Prime Minister uu dooranayay oo keenayay ayuu siyaasadda ku soo biiray sanadka ma xasuusto laakiin Sheekh Shariif markuu madaxweynaha ka ahaa Prime Ministerka loo doortay ayuu siyaasadda Soomaaliya ku soo biiray ama maamul Soomaaliyeed inuu u qabto ku soo biiray waana markii labaad hadda uu madaxweyne yahay haddana waa markii labaad gudaha familkiisa inta kula dhalataad xustay hadda sida aad u mucaaradsan tahay siyaasadiisa maadaama uu walaalka yahay familka dhexdiisa qof saameyn leh miyuu ahaa mise qof hadda sida looga gadoodsan yahay ama loo mucaaradsan waxaan horta hadda halka mucaarad ugu noqday sababtaan mucaarad ugu noqday horta ka jaahil bixinaya haye قادر بوسو Soomaali asagay ooyaysi adigaaga Cabdiqaadir asagaad raadinaysa inuu kursi ku fariisto in Soomaali farmaajo la rabaa cadaalad ku timaado Xasan Sheekh waa ka soo wada horjeedin kulligeen waa sax okay annaga khayr ma dooran waa saxiix khayr wuxuu ka keensaday xagga xaaskiisa waa seedigi khayre waa ni seedigiisa ma ahan nin meel kale uu ka keenay naagtiisa inaadeerkiisa waay dhageyso waxa weeye inta isku barteen ogaanshahaada khayr ma marwada koowaada keentay ma farmaajo la imaaday horta khayr soo ku imaaday maxaa adig ilaa adig qof ugu ogaansan adiga waay idil telefoona lagu soo garaacaya dadkeena waa iska dhib badan yihiin waa dareemi karaa telefoona soo wacaya way maqashaa soo maaha si wanaagsan ku maqlaa khayr yaa keenay ma marwada koowaada keentay khayr mise waxa keenay farmaajo بربيو خير وحكيني فرماج محمد باكين marwada koowaad waxba kama ogeyn Soomaa in ra'iisul wasaare laga dhigay khayr حسابه
annaga Soomaali haddaan nahay ama xukunka maamulka ileen xukunkii markii hore Xasan Sheekh uu soo hayay iyo Sheekh Shariif prime ministerka ayaga keensanayay dhageyso laakiin xad baa la kala lahaa shaqada waa la kala lahaa prime minister shaqadiisa iyo madaxweynaha shaqadiisa si fiican dhageyso waa gabt si fiican dhageyso Maxamed Farmaajo maamulkii loo dhiibay wuu wareejiyay wuxuu wareejiyay Khayre Seedigis Khayre oo prime minister u ka dhigay waa gartay haye marka Khayre wuxuu sameeyay marka inuu shacbiyad badan u laayo dagaal meeshuu rabay waa waar inuu keeno uu kursigu ku fadhiyay hadda Seedigii ku wareejiyay si wanaagsan inuu ku maamulo markii labada kursi wax waa 4.5 waa isla ognahay Khayre wuxuu ku fadhiyaa 4kii ku fadhiyaa qabiilka ku fadhiyaa kursiga hawiyo ku fadhiyaa Maxamed Farmaajo ka fasiray qabiilka daaro si fiican dhigis Maxamed Farmaajo kursigiisi waa wareejiyay Khayre farta ka saaray Khayre sidii loogu wareejiyay ugu maamulin wuxuu galay inuu dadkii xasuuqo inuu siyaasiyiintii guriga ugu galo inuu qarax sameeyo inuu dadkii laayo inuu baarlamaankii burburiyo inuu maxkamadii burburiyo inuu joy power Hitler inuu iska dhigo waxaan ku weydiiyay idilay waxaan rabnaa dad badan su'aalo isweydiinayaan inaan adiga cawada nooga jawaabtid marka jawaabaha hadee koobmaan su'aalaheygana wax badan waqti u helaysaa waqtiga maadaama uu nagu yahay waxaan rabaa Khayre xulashada waxa ay tiri Farmaajo waaye asaas soo xusho Soomaa صح Khayre wuxuu ku tacdiyay beelihii hiraab abgaal ha noqdaan habar gidir ha noqdaan hantidoodu dhacay wuu boobay isagoo shaati dawlad gashan maxaa ugu wacan isleedahay maadaama aad siyaasadan nooga dhunduleyso adiga Maxamed Farmaajo he's not power Maxamed Farmaajo waxaan maskiina waxaan isla ognahay Maxamed Farmaajo aan ogahay in la haysto uu yahay oo reer u gacanta u galay familkii asaga qabay xaaskii familkii waa asaga ka qabay naagta inuu gacanta u galay ayagina isku dayeen inay asab maafiya ahaan dawladii gacanta ugu dhigaan asagina qol ku xirtaan qalinkana uu hayo waxay rabaan ay ka yeelan dawladii iyo shacabkii Soomaaliyeed waxay rabaan ka yeelan dawlad maaha marka taas dawlad maaha marka awoodda marwada koowaad Zainab ay ku leedahay dalkan inta la egtahay qiyaas awoodda asagay ka aragtay fiiri waxaan ku sheegaa boosow haddaad naag guursatid naagtaada waa gogoshaada waa shaatigaaga naagtaada soo galaan ay naagtaadii sixir iyo qurun kuula timaado adigaagaas boosa walaashaa ma yeelayso markii aqoon ay kuu leedahay walaalkay boos sidaan ma ahaan jirin bay madaxweyne dad badan ambassador dadkaas oo wacay maamulkii kala wareegay walaasha ama walaalka ama familkaaga ama eedada waxay ku ogaanayaan wiilkeeni boos ahaa inuu sidaan ahayn sidaan ku duway marka Maxamed waa nin reer meel ugu xiran waana nin siyaasadii dawladii loo dhiibay iyo maamulkii loo dhiibay wareejiyay Khayrna raali uga noqdo inuu shacbiyada Soomaali xasuuqo asagoo aargudsi ka socdo oo ama qabiilaha ku aargudsanahayo waxyaalihii faham sheekada وربط شعبيتي بنادر استيت إن ورجودين حسوقه وهي هنتي إلها ينقلك إيوه مركا أولا كل فايو غير ما حكوا كل فايس لذا إنها برجدي أبقى توصل أبار سياسيين تود الله هنتي تود النوع شركة تود الجوجيو ما حكوا كل فكرة قياس هذيك قياس بالمعي كلت تدوا وقف كهدو جرني هيدي بكير اللي Soomaali waxaan is ognahay maxay hayteen boosow waa la is soo dagaalay waa la heshiiyaa labada walaalaha waa la isdagaalaan waa la heshiiyaa laakiin waxa daran cuqudadii inay wali socoto iyo dilkii iyo dhibaatadii inay socoto marka khayr iyo cudud u haya caawin way fashiliyeen way fahamtay iyo qara way geliyeen booskina waxa haysta reer xididkiis murursada haysta naagtiis hadda sanadkay barka uu hayay dawladda Maxamed gacanta ku hayay reerkeedii caruurteedii kumay soo laabanin kursigii Maxamed ayadaa fadhida khayrkeedana way wada shaqaystaan reer xididkeedii ayaaladeedii ilmaadeeradina way wada shaqaystaan dawladdiina gacantii ugu jirtaa Maxamed Farmaajo waxa weeye waa asilo waa diiday magaxumadii Soomaaliya oo dhooyeysay ehel ay maskiina oo yahay dhalinyaro curyaamiina oo ooyeysay waa loo wada ooyay waxa la isdhahay shalayto
maadaama dowladda siyaad barre iska tuurnay wanaagsaneed bal maanta mareexaankii shalayta aan u haminaynay bal dowladda ha u dhiibno waan is ognahay magaalo madaxda muqdisho majoradkooda hawiyii deganaa ayaa maxamed farmaajo u ooyey oo istaag uga soo kacay oo dariiqa u soo istaagay oo u hurdo beelay marka dadkii hurdo beelay in dariiqyadii laga xiro in la xasuuqo in la dilo in qarax lagu suubiyo in hantidii maxay dhulka la dhigo in niman siyaasiyiina guryaha loogu galo macal xaaskooda in la caburiyo shacbiyadii in baarlamaankii la burburiyo in dastuurkii lugaha la mariyo in maxay hayteen in maxkamadihii lugaha la mariyo in maxamed in nin oo muwaadin Soomaaliyeed ee sarkaal Soomaaliyeed Ethiopia loo dhiibo in dadkii Ethiopia ahayd idil ay su'aal idil waa ku gartay ugu wareejiyo idil su'aalahiga way badan yihiin idil su'aalahiga way badan yihiin idil waa gartay waa aad u mahadsan tahay su'aalahiga way badan yihiin wayna ku kooban yihiin farmaajo walaalka wali ma ku soo dhacday qeyre maadaama fashil badan dawladdan uu ka dhacay inuu asido si sumcadiisa uu dub u hanto maxaas hortaagan haddii haatay ku soo dhacday maxamed farmaajo hadda wuxuu taagan yahay boosow niman badan oo odayaala mareexaan ayaa u tegay annaga qabiilkeena maxamed farmaajo go'aan wuxuu taagan yahay khayre ma bedelayo waa isla baxeenaa wuxuu qasahayana asaa hawsha wata asaa maamulka wata asagaa maxay ahaydeen wuxuu raba dawladda u ka samayn kara asagaa kursigeeya ku fadhiya anigii khayre waa isla degaynaa ayuu aaminsan yahay hadda waxaa ku weydiiyey tolka aad ka dhalateen familka awooga kore go'aanka farmaajo hadda uu ku dhaqaaqayo ilan iyagaa lagu xisaabtami doonaa madaxa dalka ka ah familka sooma ma fariisteen oo ma ka hadleen oo arrinkan qaabka daran ee farmaajo uu ku dhaqaaqayo ma kala hadleen maxay waxba is weydaarsadeen weli arrintan ma laga manaashaqooday waxaa kaloo kuu sheegaa arrintaas go'aanka waxa waaye idinka Soomaali waxaa idinka qarsoon maxamed farmaajo go'aankiisa kama socdo madaxtooyada khayre go'aankiisa ka socdo si fiican idinkiisa marka waa farmaajo qoluu ku xiran yahay nin aad mas'uul ka sugaysaan malahan qalinka looga tagaa sirkii Facebook ku jira si fiican idinkiisa waraaqda waa loo geeyaa khayra qora waa loo geeyaa waa laga siixaa marka karo maamul Soomaali inta shacbiyadeedana mas'uulkeeda ma qaadi karo idinkiisa marka waxa weeye waxa u qurux badan maxamed farmaajo anagu international community noo keen si fiican idinkiisa oo la soo dhigiray oo muddo sanada istay Nairobi idinkiisa waxa la socdaa arrinta ilowsantii waxa weeye waxa lagu yiri ninka kaliyan hawiye qabiilka la yiraahdo ka gadi karno oo daarooda waa kee waa maxamed farmaajo si fiican idinkiisa waa saxiix waa naga gadaba waa ninka kaliya naga hawiyana waa qaba qabiilka hawiye majoradka amar joogana waa sax naloogu soo dilindileeyay hase ahaatee haddii naloo soo dilindileeyay adigoo boosa wiil kaleeto Soomaali oo hawiya oo xamar jooga uu ku doortay wuxuu ka doorbiday maxamed farmaajo in uu xilkii wareejiyo uu reer xididkii dhabarkiisa ku jiray uu furanta keeno hore keeno adiga inaad mucaarad ku noqoto waxaad iibi kartaan dhiiba waxaad iibin kartaan iibiya anigu qalinkaad igu waa gartay idil cabdullaahi waa ku gartay waa ila socotaa dad badan ku soo wacaya koolka waa ujeedaa oo ku qasaya kuwaas block saar laakiin idil adiga inaad mucaarad ku noqoto madaxweynaha Soomaaliya oo walaalkaa goorme maxaa kalifay goorme se kugu horeyso mucaarad ma xilligii ra'iisul wasaaraha mucaarad ku ahayd ma xilligan uu madaxweynaha mucaarad ku tahay ma noo sharaxi kartaa dad badan isweydiinaya sababta gabar walaashiis ah siyaasadda uu ku shaqeeyo ay ula dhici laadahay maxay tahay sababtaan mucaarad ugu noqdaa kuu sheega adigoo boosa adeerkaa markuu xamar lagu dilo oo khayro ku dilo dhegayso ila khayraasaa keen dhegayso ama hooyadaa lagu dilo ama walaashaa lagu dilo haddaanu ina farmaajaa kaa soo horbaxo maxaad iigu abaalgudaysaa su'aal baa ku weydiinaya maxaad iigu abaalgudaysaa dhibaatadeeda leedahay waxaad iigu abaalgudaysaa inaad indhaha candhuuf iiga tuftaad gaaraysaa markee walaalkay magaciisaa lagugu dilo reerkiina lagu xasuuqo saxiix war aabale walaalkay magaciisa ina farmaajo anigoo ah waad indhaha iiga candhuufaynaysaa oo waxaad isku dayaysaa xitaa inaad gacan ii qaadi dhegayso marka aniga magacii aabbahay baa
وحبا يدمن دغيسو والله ودنيا قبل والله قبيل ان كدش شيء بان سخينيا مغي قبيل ان قبيل بان ماشي ugu fadhiya kursi قبيل بان ugu fadhiya واصح مغي aabahay mid kale magi qaranimada barkee magac qaranimo meesha kuma haysto barkee waa dad inaan xasuuqo walaalkay u tagay dad genocide inuu ku sameeyo u tagay ani waji ma sugahay marka aniga walaalkay ila dhashay markii magaciisa lagu xasuuqo adi waji kama sugahay tii rabbina waji ka sumay qof kasto Soomaali wanaag lagu la dhaqmo ani lacag kama rabo fiiri anigu jiga kama rabo laakiin adigaaga boos wanaag telefoon waad ii istaagaysaa waxaad leedahay walaalkeed madaxweynihii wuxuu ahaa kuwa ku soo wacaayo hadda ku dhibaayo koolka kugu dhibaayo hadhow marka koolka ka baxdi blog wada saar kulligood maadaama ay ogyihiin alla waxaan ku yidhi Fahad Yaasiin ninkan yidhaa Fahad Yaasiin awood intee leeg ayuu madaxtooyada ku leeyahay ka ogaanshaha صح Fahad Yaasiin ninka la yidhaa beesha shayqaal u dhashay awood nooce ah ayuu ku leeyahay madaxtooyada ogaanshahaada aniga waxaan la jeclayso wanaag baan la jeclahay wanaag inuu maamulku ku sameeyo siduu ilaahay ugu dhaarto kutubka ugu maran inuu ku maamulo dhageyso markee waa ogahay in dadka shacbiyada hadduu wadi waayana uu iscasulo waan ku gartay waxaan ku iri mar kale idil farmaajo si wacan ii dhageyso waxaan ku iri ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin waxa lagu xantaa inuu yahay shakhsiga lacagta keenay ee qadar ka soo qaaday ee madaxweynaha Soomaaliya awoodiisa dhan gacanta ku haya oo wax u tilmaama wax haga awoodiisa madaxtooyada Fahad Yaasiin ninka la yiraahdo ogaanshahaada heerka awoodiisa intay taagantaas leedahay adiga awood fiiri nin awoodiisa Fahad Yaasiin fiiri nin awoodiisa Fahad Yaasiin dhageyso ama Mustafa Dhuxulow asla naqaan Mustafa Dhuxulow oo ahil dhibaan oo weligii siyaasad iyo madaxtinimo aqoonin waaran oo dad ninka siyaasadiisa noqotay Cali Yare waa isla naqaana aniga siyaasadda sugaysa maxay su'aal ku weydiina fiiri maaha waa ka qancaya si wacan baa kaaga qancaya ay qofku dhameystiray way siyaasiga marka minis waxaan ku sheegayaa Maxamed Farmaajo walaalo experience uma lahan dawladnimo maamulkeedana ma yaqaan waligiina dawlad uma soo shaqaynin khibradeedana ma lahan khayro aan khibradeeda lahayn waa keensaday Fahad Yaasiin oo khibradiisa lahayn waa keensaday Ali Yare oo khibradiisa lahayn wuu keensaday Mustafa Dhuxulow oo khibradiisa lahayn wuu keensaday Ali Yare ma noo sharaxi kartaa muxuu qabtaa meesha علي يرى محوها باك جراوند كيس سؤال بكويتينا يورو محو كان باك جراوند حقرو واسببت الله كوسو غلينay ina shakhsiyad badan ka wareystay cawada علي يرى marka ninka علي يرى la tashanahay علي يرى inta ka qaan عيال فيسبوك علي فيسبوك inta ka qaanani wax kala aqoon umali صح muxuu meesha ka qabtaa marka isaga ilaa walaasha isku hay علي يرى waa groupka Maxamed Farmaajo oo ololey kaliya waa groupkooda wuxuu ku jiraa siyaasadda villa Soomaaliya Maxamed Farmaajo saaxiibkiisa dhageyso aatiya waa groupka madaxweynaha laakiin meesha kaabaha waxa ka kow Fahad Yaasiin si fiican dhageyso waa la ka Soomaali weyn khayre qofta maamusha ee khayre powerka u dhiibtayna waa naagta Maxamed si fiican dhageyso gogoshaada markay siyaasadaada timaadana ma ka hadli kartid Maxamed Farmaajo xiniyaha looga dhaganya ay fahamsantahay sameey asaga marka waxa leedahay marna raali kama ah tacdiyada xamar ka socda jidadkan xiran hooyooyinka jidadka ku umulaaya marna ma ogola Maxamed Farmaajo meesha sanad uu ku yahay qol mugdiyo ku jira waxa weeye waa laga feermeeyaa shacbiyadana waa la xasuuqa sidii la rabaa laga yeeshaa khayrana qalbi dhagax dhibistiisa isaga awood badan ku lahaa isleedahay bis waxba kama ogeen maxaa Cabdullaahi markee qalbi dhagax dhibistii Itoobiya loo dhiibay maxaa Cabdullaahi Farmaajo xog intee lag ayuu ka hayay isaga maamulka ahaa marka kooxdii dhiibaysay ma la soo ogeysiiyay maxaad ka ogtay qalbi dhagax markii la soo qabtay oo gacanta lagu soo dhigay Maxamed Cabdullaahi wuu ogaa
wuuna accept gareeyay mana ka hadli karo khayre wuxuu gacanta ku soo dhigo maxamed awood uu ku hadli karo male khayre ayaa yiraahda haddii qarax ka dhaco haddii qalbi dhagax qof la dhiibo maxamed farmaajo ma hadli kartid halka naagta tirada jiq ma oran kartid fariiso jiq ma oran kartid waxaan rabnaa sameynayna had marka qalbi dhagax markii ood waxaan sheeko ku maqlay xitaa la ii sheegay niman baa u tegay oo odayaal ah oo hawiye isugu jiro hiraab isugu jiro oo qaar xildhibaan ah oo qaar senator ah waxay ku dhaheen markii qalbi dhagax la dhiibay maxamed farmaajo nin wadani ah oo sarkaal wadani oo Soomaaliya ayaa Itoobiya loo dhiibay maxamed farmaajo maxaa dhacay wuxuu ku yiri maxamed farmaajo awalba ogaadeen ku Itoobiya loo dhiibi jiray maxaa ka macnaa dii loo dhiibay igu kaadi idil hal mar dadka la hadlaya waa ma santiin sida idil igu jir qadka dad badan aan leeyahay awada dad badan ay daawanaya awoodan daawashada hadii adinka saamixina waad dadkiina kala la wadaagina ama share aadan sameeyna halkan ma gaari karno shacabka Soomaaliyeed intana daawanaysa awooda qofka ama labada qof oo hadlaysa awood ma laha dadka daawanaya ayaa awoodooda hoosna u dhigi kara korna u qaadi kara marka sida nolol shaqeysaan ama in nolol socotaan su'aalihiina waa tixgelin doonaa idil u laabanaya idil nabad iyo nolol wali ma kula soo xiriireen ma ku dhaheen gabar walaalo oo farmaajo la taataay bal intan ho ama farmaajo WhatsApp kugu soo qoro ama yaa afaad yaasina ku soo maro waxay rabaan ha soo qoran ha iska caytamaan don't worry ha u bixin may waa taageersan wayna taageersan oo caytamaya ii aflagaadeynaya ha u bixin qabiil inuusan jirin waxa caytamaya waa reer maqaar dadka caytamaya waa reerka maamulka gacanta ku haysta waa reerka shacbigii banaadir isteed xasuuqaya waa reerka qalinka lagu wareejiyay maamulkii gacanta laga saaray marka waxay diidayaan idil waa ku gartay si maadaama aan la dhashay waxay diidayaan arrimaha private-ka aan ka hadlahayo ifaham shay waa dareemi karaa aniga markastaba shacbiyada Soomaali waxaan u taaganahay in qarannimadii shalay walaalkay lagu soo doortay aniga ina xaawataa ka noqdo shacbiyada Soomaaliyeed magacaabaha inaan ugu xasuuqin idil waa ku soo idil waxaan ku weydiiyay su'aal kale dadkan way ku amaanayaan hadda ilaa hadda qofka wax ku dhibaysta ma jirto Soomaalida qabiilna inay ka tagaan haboon maadaama idil oo walaal la ah farmaajo oo walaalkeed uu yahay ay ka soo horjeeysa siyaasadda qabiil ma laha maanta idil waxaan ku weydiiyay nabad iyo nolol kula soo xiriireen ma ku dhaheen war farmaajo waa kula dhashay ka aamu intaan hoo isaga ma kula soo xiriiray Fahad Yaasin qolaba wuxuun ma kula soo xiriiray dad ka socda farmaajo nabad iyo nolol ha noqdaan ehel ha noqdaan si kale ma noo sharaxi kartaa wali wada hadal ma dhacay nabad iyo nolol shacbiyada Soomaaliyeed lagu qaldaya maya ma kula soo xiriireen adiga ma kula soo xiriireen idilay no ma wici kartid aan mana la hadli kartid waa la kuma yaa dhahay markii naagtiisa ku tiri iyo khayre mana wici naagtiisa tiri wirwac ma hadli karo awoodu ku soo wac hooyadii xitaa mare hooyadii dhashay xitaa ma soo dad badan isweydiinay waxay leeyihiin waa baawarkiisii oo dhan guriga ugu xiran yahay reer buuna hostage u yahay nin la haystana weeye doqonna weeye baawarna ma lahan waxa weeye waa nin guri lagu xirtay sidii la rabo laga yeelo ma wici karti mana la hadli kartaa la yiri waryaa fariiso maxamed farmaajo dhowr jeer buu tabcay xitaa inuu iscasilo markaa miidiyaha soo istaagay waxaa la yiri waryaa fariiso wadanka intaan ka dhacayno oon aar gudsanayno xoolaha dhacayno dhulka dhigayno شوق ما أورك تالك فيسالي ما ممكن هذا قوضينه يا أرجونا يا مركي يا لقى أرجونا قبيل كي لقى غير وهل لقى أرجونا يا دتك اللي حسوق هاي وغير برتلمان كويا قال دتك اللي هذا هراب هبر قدر يبقى إنه dhulka la dhigaa go'aan lagu gaaray sheekada la haystana waxa weeye Kuwait in la aarguto dadka taas way dharka looga bixina dharka videoga looga duuba in history ay noqotay dhahan shalay Kuwait baan la yiri maantana waxaan nahay hero waad aragtaan islaamiin inaan masquulaha ugu galeynay waad aragtaan wiilashiini video inaan ka duubeen waad aragtaan hantidiina dhulkiina dhigaynay waad aragtaan waa revenge waa hadal qaadan karo oo hadda lagu faano hadii aad sala Kuwait noo bixiseen dadka si kala hadaan u fasiro hadii aad sala Kuwait noo bixiseen habar gidiray maanta wiilashiina waa qaawinay waa taariikh ay rabaan history inay dhigtaan mursade history inay ka sheekeeyaan Kuwait baa shalay ahayn jika abgaal baan ku jirnay shalayto maanta history waa kaasa nimankii maxay hayteen hiraabka ahaa ayagoo qaawin videogood waa ka naagahoodii aan masquulaha ugu galeynay waa kaasa siyaasiyiintoodii
aan dadkoodii laynayni waa ka aan xasuuqayni waa ka hantidii dhulkaan dhigayni wataa aan baabi'inayni xasuuqayni hantidaan yeelanay waxay revenge raadinayaan qabiilka jabhadda dhalinyarada xoreynta waa inaad la sheergalaysaan videogan waad la wadaagtaan walima waad aragtay nin murursadaa oo khayro dhahaya waryaa dadka daa dadku laynayo waa dad gobonnimada waa loo dhashaa gobonnimada loo dhashaa banaadir isteed waxa ugu badan hawiye hiraab baan ugu badan dadku idilay dad badan idilay haddii aan idil may maqashaa idilay dad badan isweydiinaya waxay mucaaradsan tahay walaalkeed haddaan dib ugu laabana qabiilka mareexaan ama jufada mareexaan sade waa dad horta gobonnimada caan ku ah waxaana idil ka hor dhacay in habeen hore idinkaga sheekeeyey shire maxamed siyaad barre uu isu dilay ama xataa loo dilo kolley aan dalka beri ku marna sharaf madaxweyne xilka ka deg aan noqono wiilashii aadan cabdulle cusmaan oo kale madaxweyne aan dalka barwaaqo iyo sharaf iyo magac ugu noolaano idinle dabcan hantidaas muguurtada ah magacaas muguuraanka ah ayay dabcan weli ayadan la jaan qaadaysaa idil marka gobonnimadan mareexaanka uu ku naqaan mana sugayno kulli hadda qof oo qeyra ku cid ah inuu sameeyo xataa comment kama dhahan qeyra bahdilku uu geysto wiilkii yaraa ee la qaawiyey senator cabdi qaydiid cabdiraxmaan cabdishakuur siyaasigii 6 wiilo laga dilay weli ma arkin qof murusadaa u dhahay ha nala raali ahaado cimaamadan keenay waa soo hoyanay ma arkin waa ku faraxsan yihiin iyo hadalka aad ka dhawaajisay cawada oo bulshada ku cusub oo ah dad revenge u socda ama argudasho oo weliba xanaaq ku dheehan yahay waa wax la qaadan karo waa wax macquul ah aniga dumaashiday waaqaan si fiican i dhagayso dumaashiday weligay waxay ku taahaysay weligeed waxay ku taahaysay annaga dagaalkii 91 waana lagu xasuuqay kuwait baana loo bixiyey qofka fiiri abo fiiri qofka taqaaniyaad tahay lama yiraahdo waan ogahay naagtan waxyaalaha ay ku taamisay barkii annaga qabna annagayna ilmo noo dhashay taas qofka aniga kula hadlaaya because waxa weey abo waa la istagaalay waa laga heshiiyey 4.5 baan yaqaan Soomaali way isu timid fiiri waa la isku tinaasay fiiri waa la isku fiiri laakiin inaad weligaa higsatid ma ina cuquba ku jirta ba aniga marka ma doonayo magaca aabahay fiiri murursade hadday intay soo sharaxaan ay ragnimadooda qayr ku yimaado hadduu xasuuqayo ha xasuuq barkay ragnimo ku yimid laakiin magaca dadka lagu xasuuqayo waa ninkii loo ooyayo ila dhashay aniga maxamed farbaajo ahaa khayr looma ooyin khayr looma ooyin khayr iyo fahd yaasiin iyo looma ooyin khayr malooyin maxamed farbaajo weeye maxamed cabdullaahi maxamed weeye waa curadkii hooyaday weeye ninka lagu soo dabagabaday ee shacbiyadda banaadir isteed hooyada maskiinta dariiqa ku dharaysa dariiqa laga xirahayo hooyadii u ooyeysay way shalay banaanka ugu soo bixisay ma beentayba hooyadii ooyeysay way diiday inay harsato inay hooyato marka hooyadii ooyeysay markii inta khayro aan naxaynin oo aan nasab ahayn oo ilaahay ka baqaynin oo rasuulka ka baqaynin lagu soo fasaxay oo qabiil ka weyn yahay aniga ma ka yeelaa maya aniga mursade iskood ha isku soo sharaxaan iskood madaxweynaha ku noqdaan iskood prime minister ku noqdaan laakiin magaca aabahay cabdullaahi farmaajo cabdullaahi maxamed diirshe ma lagu xasuuqay shacbiyadda Soomaali ahaanana iyo ma noqonayso no marba jirta idilay si wacan baan u fahmay aragtidaada guud ee wadanimada ku saleysan marba maqlay in qalbi dhagax markii la dhiibay qeyr iyo farmaajo isku dhaceen oo qeyre xilka farmaajo uu ka degnahay laakiin maruu maamada koowaad ee dalka ay tiri ama anaa baxaya ama qeyr waa joogaya ma jirta arrintaas barabi exactly qeyre wuu isku dayay markii ugu horeysay weeye oo barabi qalbi dhagax dhiibay wuu ka xumaaday wuxuu damcay inuu qalbi dhagax bedelo waa markuu aamusay oo la yiri maxay hayteen maxamed farmaajo muu hadlo oo shacbiga qayliyeen dhagayso wuxuu yiri qeyro lacaga xitaa wuxuu kula loolamay lacaga ku siina saaxiibow anaa ku keenay seediyow anaa ku keenay sharafta anaa ku yeel ixushmay lacagan kugu daraa volunteer isku casin kalarkay ku dhigtay waxay tiri anaa ay furaysaa khayr ma baxay waa isla baxaysaa oo sidaas ah khayr ma baxayay tiri waa isla baxaysaanay tiri qabiilka marka murursaday waa la shiray odayga la leeyahay odayga kaaba qabiilkooda ee magaciisa maxaan yiraahdaa xaafna maahan magaceed muxuu ahaa magaciisa odayga koofiyada murursaday odayga kaaba qabiilka murursaday madaxtooyada degan ii sheeg magaciisa maya oday waxaa jira kaaba qabiil waa murursaday xaafna maahayna wuxuu ahaa magac kaleeto oo maxay ahayteen ii sheeg maxamed macalin
magac kalaa la yidhaahdaa oo murursada ah wuxuu yidhi waryaabaa la yidhi waa la shir maal ayadaa la shirtay hotel waxaa lagu shiray hotel ku yaalla maaragtay hotel waxaa lagu shiray habeen barkiyaa la shiray maxamed waa seexday waxaa lagu shiray hotel la yidhaahdo hotel jasiira lagu shiray si fiican ii dhegeyso gudoomiyihii beelaha hawiye ee oday dhaqameedka murursade beelaha murursade kii dhimanay maan odagii kale odagii xaafna lama dhehe magaca noocaas uu leeyahay xaafna lama dhehe magac kale waa ilaabay waa jirtaa sax waa nool yahay waa gudoomiyihii odayaasha gudoomiyihii beelaha hawiye oday xaad waa la shiray waxaa lagu shiray maanta jaaniska noo soo galaa la yidhi ninkaa mareexaan waxba ma ogaa la yidhi kursiga ama waa wada degaynaa ama waa wada degaynaa ama waa wada joogaynaa ayada waxay tiri waa wada joogaynaa ilaa iyo maxamed heer markaa wuxuu gaaray inuu u guuro meeshan xataa noloshiisa inay qiilqiil noqoto uu gaaray wuxuu u guuray meeshii la dhahayay ii sheeg gaashaandhigga ilaa hadda maxamed gaashaandhigu degan yahay wuxuu amison ila diluu ka baqay khayr dhowr jeer buu khayre xitaa isku dayay inuu hub la soo galo madaxtooyada hubkii askarta dhexdeedaa qabsaday hubkii dadkii waa laga dhex saaray baabuurkaa la soo geliyey marka khayre waxaa leedahay awoodiisa iyo kartidiisu ku jooga madaxtooyada exactly marka maxamed dhowr jeer xitaa waa lala cararay kuwa maraykanka oo international communityka loo soo sheegay askartii xitaa abgaal iyo askartii majeerteen oo cabdullaahi yuusuf waardiyeynaysa iyo askartii ogaadeen iyo askartii dhulbaantay khayre waa bedelay murursaduu keenay maxamed dadka waardiye hadda madaxtooyada jooga waa murursaday xataa abgaalkii waa laga wada saaray meesha waxaa la yidhi habargidin kulli waa laga wada saaray waa bedelay wuxuu yidhi anaa madaxweyne oo prime minister uu yidhi kulli ammaanka madaxweynaha anaa sugahaya itismii murursaduu keenay ka jawaab ninka waxaan ku weydiiyey marka cilaaqaadka uu la leeyahay farmaajo beelaha daarood sida majeerteen ogaadeen waase ilan hiraabka kaliya aragnaa oo la bahdilaayo la weeraraayo sidoo la dhaqmaa beelaha kale ee majeerteenka dhulbahantaha beelaha kale daarood sidoo la dhaqmaa beelaha daarood albaabadu ka xirtay maxamed farmaajo shaqo ku malay beelaha daarood afar xabo ah oo fahad yaasiin wataa u jooga nimanka beelaha mareexaa kale leeyahay sida ina calimiro oo kale fahad yaasiina wata sida kan warsan geligo kale fahad yaasiina wata cabdirashaaq shoole markee fahad yaasiin naagtuu qabo waa mareexaan waa reer siyaad niman reer siyaad mareexaanka jooga fahad yaasiina keena dhegeyso dad badan waxay leeyihiin idilay madaxtooyada fahad yaasiin dhankiisa ka socdaan maxamed meesha waxba kama ahan waraaqdu xitaa askariga xitaa ma dhegeysto waa la tuuraa dad badana waxay ku weydiinayaan farmaajo qaadka ma cunaa ogaanshahaada yah dadaa waxay ku weydiinayaan commentiin dadaa noo soo qoraya farmaajo balwad ma leeyahay sidiisaba maya okay kuma ogin waa saxiix waxaa su-aalaha dadka akhrinoyaa intii aan aniga kuwayga waa dhiman yihiin welito wax xanuun ah ma jiraan madaxweynaha maadaama marka uu hadlaayo leeyihiin uu madaxweynuhu tartaraayo mana ku ogeen waqtigii uu ra-iisul wasaaraha ahaa hadalka tartaraayo cuntadaa wax loogu taray wiilkan caadi buu ahaan jiro weligii ma shigshigi jirin weligii ma shigshigi jirin cuntadaa wax loogu daray ninkan waxaa jooga sixiroolayaal baa meesha u jooga niman 11 sixiroolaa u jooga xitaa waxaa jirta nin waxaa jira baadicad gaal jecelaha baa jooga oo samow la yidhaahdo hooyadiis murursado tahay waa sixiroolaha weyn ee maxamed farmaajo lagu sixiro cuntada loogu daro maxamed farmaajo hadalka waxaa loogu dejiyey sixir weeye naagtan madaxtooyada dadkii waxay la aamusisay xoolihii neefafkii la qalaay maxaa sustaa xaafadaha la dhigahayay badda xitaa neefaf baa lagu qalaa shimbiri xitaa ayaan dhawood waa la keenay shimbirihii cadcadaa maxaa sustaa maxamed uu gacanta ku haystay ee la duurinahayay alaabta sixirka waaye shimbiraha waa loo keen koofiyadda uu wato sixiraa ku jiro koofiyadda madaxa u saar sixir waaye adigaagaas markuu kuu yimaad waxaa rabtaa siine oradaa leedahay wax kastaa faraha ugu furqaysaa naagtaa yaa sixira yaa lagula xisaabtamaa naagta waa sixirtooy weynaatay meesha sixiray ku haysataa ayada iyo khayriya waa la wada ogyahay neefaf baa la qalaa digaagaa la aasaa cuntadaa wax loogu daraa sariirtiisaa wax loo geliyaa kuraastaa wax loo geliyaa baabuurkaa wax loo geliyaa cuntadaa loogu daraa waxaa looga dhiga abatuutin maba hadli kara diidiinaa laga dhiga qolu ku jiraa sidiisaba marka yaa lagula xisaabtamaa waa bigtan sixiray nolol mooday sixir ayay nolol mooday yaa lagula xisaabtamaa marka marwada koowaad miyaa lagula xisaabtamaa sixirkaas ra-iisul wasaaraha lagula xisaabtamaa yaa lagula xisaabtamaa islada madaxweynaha soomaaliya waa madaxweynaheeni
hadde boosow dhibka meesha yaalo maxaa farmaajo gogoshiisaa looga yimid adduunka gogoshaada wey soo moogid gogoshaada markii lagugu yimaado waxa weeye way kuu dhammaatay ninka gogoshiisa waxa weeye naagtaada weeye naagtaada ayaa bannaanka adoo qaawan ku dhigaysa naagtaada sharaf kuu gelayso dhar kuu gelaysa maxamed naagtiisa bannaankay dhigtay waa qaawan yahay maxamed shacbiyadii u ooyahay maanta uf baa laleeyahay ayadaana kasabtay iyo reexididkiisaa kasbay iyo khayre in maanta shacbiyadii u ooyaysay maanta ay habaaraan dad badan ayaa isweydiinaya inta uusan electionka gelin ka hor buug ayuu qoraa la leeyahay farmaajo oo qabiilo soomaaliyeed uu ku taabtay ma jirta arrinkaas ma sax baa arrintaasi mise waa been maxaa u caddeynaa shacabka caawa maxamed farmaajo soo maaha buugaag inuu qoray oo majeerteen iyo abgaal uu kaga hadlaayay in siyaasadahooda horukaca leh ama kobaca siyaasadeed waa mastereedkiisa buuggaas waa qoray yes buugga la leeyahay aadan cadiyo waxaasuu ku caayahayaa oo uu dawladdu uga hadlayaayo waddanku uga hadlaa buuggaas wuu qoray mastereedku waa qoran yahay asaa qoray that's right sina haddii loo fiirsho si haddii loo fiirshana caay maaha si haddii loo fiirshana waa kulley maya wuu qoray buuggaas waa qoray buuggaas been maaha buuggaas wax ma ka akhrisa duluc wax ma ka haysaa muhiima maya ma ka akhrisan markay sababtaan ugu akhrisanayn waxa weeye qofka wadanigaa soomaaliga ah historiga soomaali wuu qori karaa laakiin hadday noqoto qabiil iyo dad lagu aflagaadaynahayo ama wax looga sheegahayo ma akhrista adiga laakiin qofka wuu qori karaa historiga soomaaliya wuu ka sheekeyn karaa laakiin anigu ma isku dayin totalmente adigu qoritaankaas uu qorayna waxa weeye maxamed farmaajo naagtaan intuu qabay ahayd ayadaana qoritaanka la qortay waxaasna ayadaa u qortay waxay tiraahdo qor buuna qoraa waad aragtay markuu khudbadaynaayo khudbadihiisa wuxuu ku hadlaayo waa waxay ayada kusoo akhrisay calashaan waxay rabtaa dadka jeclaa ama doonahayay ama maxamed rabay inuu sharaftiisa kor u soo qaadno waxay rabtaa shacbiyadii inay baabi'iso khayrina soo saarto waa mees qajir isaga madaxweynaha odaygeeda iyo ninkeeda iyo caruurteeda waxaa uga weynaada qabiil that's the pointiga marka naagtu hadday qabiil kaa xigsato naag maaha hadda ku sheega waa ogaa nuurin mukhtar ha naagtu hadday ninkeeda u aragto ilmaha ka dhashay gogosha la soo seexatay inuu nin shisheeya dharka inay kaa dhigto naag maaha hadda ku sheega isaga imise jir waay madaxweynaha soomaaliya yah meeqa jir waay madaxweynaha soomaaliya meeqa jir waay maxaa cabdullahi hadda ka war hadda asagoo maanta sharaftaas lay rabtaa ninkeeda dharka inay ka dhigto way maqashaa soo ma maanta sharaftiiskay dariiqa ku marayso maxamed farmaajo u keenay haddaan ku sheegay qabiilna uma keenin fahad yaasiinna uma keenin khayrana uma keenin mustafa dhuxulowna uma keenin waxa uu keenay maxamed cabdullaahi farmaajo haddaan ku sheegay maxamed cabdullaahi qabiil maxamed cabdullaahi imise jir waay idilay asaga meeqa sano jiraa goormuu dhashay dad badan ma ogaa 1962 dhashay imise caruur leeyahay madaxweynaha iyo xoogaa waa jira imise caruur ayuu leeyahay madaxweynaha marka 4 caruur uu leeyahay 2 gabdhood iyo 2 wiil uu leeyahay oo marka marwada koowaad ay u dhashay gabdhihiisii waa joogaan baafalay degan yihiin wiilkiisina waxay ku tuurtay college Kenya ku tuurtay Kenya ku rafaadsanay 13 jira ka bacdina hadda Buffalo ku soo noqday ilmihiisii Buffalo waxay ka Buffalo iyo Toronto ku wareegaan hooyada lama joogo inna lama joogo afartaba siinaba dhashay Soomaa hooyadeeyo waxa haysa labada lugood ka dhaqaaqi karin ayaa u shaqayso oo indhaha wax ka arkin baa booyaasa mana uu soo waco mana la xiriiro hooyadiis wax xiriira lama laha hooyadii Soomaa ha laba wiil iyo laba gabdhood walaalihiis kale laakiin oo adiga marka laga reebo oo afkaartaada ay caddahay mala xiriira marka walaalihiis kale ma xiriiraan wiilal baa la jawaabay wiilasha walaaladiisa shaqo ku male reer farmaajo albaabkay ka xiratay familkii hore albaabkay ka xiratay naagta waxay tiri waxaan murursadeen ma soo galahay albaabada sideeda waqtiga ra'iisul wasaaraha reer farmaajo dooyinkii adeeradii soo baahan oo caabud waaqa joogo qaar xamar joogo kulli albaabada ka xiratay naagta waa murursadeen waxa uu joogo waa murursade waxa maamulanahay waa murursade waxa waardiyeynahay waa murursade waxa dadka laynahay waa murursade waxa gacanta ku haysta waa murursade waxaana murursadeen meesha kama tuula wiil murursade 63 sano ayuu jiraa ayaa qofku soo weydiiyey mi maqlaysaa idil farmaajo idil hal mar telefoonka ka dhacay
waxaan filayaa inay nabad qabto kulley qof live telefoonka uga dhacay hal mar waxaan filayaa inay nabad qabto idil bal u duceeye waxaan filayaa inay nabad qabto hal mar uu telefoonka uga dhacay wuu soo qabsan lahaa oh my goodness aad iyo aad ugu xumahay idil waxaan rajaynayaa inay nabad qabto idil haddii aad way soo laaban doontaa kulley hal mar telefoonka qofka hadduu ka daman oo arki lahayn laakiin wuu dhacay kaamirada koree fiirisay kulley waxaan rajaynayaa inay nabad qabto ayaan aniga rajaynayaa madaxweynaha soomaaliya waad aragtaan horta nin reerkiisii waalidkiis iyo walaalihiis maamuli waayey horta waxaa fiican soomaaliya in run laisku sheego qof reerkiisa walaalihiis iyo waalidkiis iyo caruurtiisa aan ka warhaynin ma u malaynayo in uu dal soomaaliyeed maamuli karo sabab uu kusii maamulana fursadda noocaasa ma banaano bal adiga xisaabtan qof walaalihiis waalidkiis aanan habi u ahayn aniga haddee walaasha ila dhalatay habi ii ahayn waa inaan ka tagaa xataa guriga because walaashiyaa qanci waay maxaa ummad soomaaliya qancin karaa comito waa kusoo qabanaa adaan kusoo qabanaa comito waa gabar siyaasiyada ah bal comito hello hadaladii haddii aad daawato inkastoo aanan wejigaad arkayn comito hadaladii idil farmaajo sidee kula muuqdeen idil haddee soo laabatana soo qabanina laba su-aalood muhiim ay ugu harsan idil farmaajo way idin daran tahay mataqaanaa jaaniska ee haysato jaaniska ee haysato idil ilaa jaaniska comito ma maqashaa waa ku maqlay maqlowsa adiga si bareera u dhowsa waa idab daran tahay waa ceeb waa naga maqan tahay idil farmaajo way qaldan tahay waxa dhan ay caynayso waa maxaa la dad hawiya oo lafa leh oo nasab leh oo mataqaanaa ilaahay karaamo sii waay inay tiraahdo farmaajo waa la sixir hawiyaa sixir mursadaa sixir hiraab iyo mursada kala micnaheed is the same ma fahan same family ya waa inay soo qabataa nin daarooda wax ka sheegtaa ninka farmaajo iyadoo ka yahay mataqaanaa dhaadhaanka حتى على غير مشي كرتو سير wax ma sheegi karta naag walba ninkeeda waay ma fahamtay nin walba guul gaaray naagtiisa keenta toofaarta xunta ina am ku duufaabiyeese bay aflagaadada waa koomiko no aflagaadada ma boss you have to inay dhageysatid idib waa dhageysanaysaa waa ayada laakiin fiiri qofka ay waay wacal waay idab daran tahay waa qalan maanta dhan la feecaynaysa anaga ay ma fahamtay يا لفاي ما تدن عايز اي ديس سيرولوشن واي وي ارغدنايان منصد waxay ka argudinayaan malin walba jaanis oo leeyahay jaaniska waa inay dhageysataa jaaniska asiga oo helay oo farmaajo ku helay ha u tagtay walaalkeed body car u noqotay boorsada ha u qaado just inay caayso ma ahno murasada inay caayso la fadhalada inay caayso ma jira sirolooshin waay komiko ayada murasadaas murasada waxba kama sheegin laakiin waxay leedahay murasada yeeshay murasada seenaba murasaduna ku abtirsata nin seenaba daacaysa murasada way caaysa boss seenaba waa shakhsi seenaba farmaajo no farmaajo madaxweyne waa just waa walaalkeed waana madaxweyne fahamtay waa ku fahmay way dhigi kartaa madaxweyne farmaajo saas waa laakiin waa la sixir mursada argudina inay dad hawiya isku dirto ina aqliga hawiya inuu aqliga yeeshtaa waa shagaashak in ayaga la isku diro oo ayaga ma taqaanaaye ila dholo isku tilaama no wajigaada haafna waa aragnaa dad badan waxay ku leeyihiin komiko horta intaadan ku guda gelin wajigaada dadna waxay ku leeyihiin haafna waa aragnay haafna aan ilaga dhaw waxa aragtiin maayo waa ku jeednaa laakiin adiga la isqarin way waxaan jeclaan inaad toos ku aragno horta marka hore qofka marka idil farmaajo kale inaan banaan mugdiya sheegtay masquul ku jiro waa in koomid galmada oo dhiblaaban bada shaaraca taayna jidkan taagana maya waa ina horta ku aragno hadii ay suurtagal tahay waa inaan ku aragno si afkaartaada ay meel u gaarto haddaan qof kale arkaynin aniga idil farmaajo haddaan maya dulmi ma idil farmaajo qof live u fadhiyay oo wajigeeda banaanka yaala waaye haddaan rabtid inaad hadalkeeda diidmada qayaxan u adeegsatid waa inaad wajigaada banaanka keentaa markaasaa muhiima marka dadka aniga wajigayga cidna kama qaraay ma fahamtay inaad laakiin aku sheegaa ma taqaanaa meeshaanay aniga dawladda waa kasoo horjeesan karaa waa mucaaradi karaa laakiin niman dhalada hoona adiga murasada ma tahay badhaa ya adiga murasada ma tahay aan kula kaftamay ay murasada aboowe ilaaha iga dhigo murasada ma ogdo ha kugu dhacay murasada waa niman hawiyaa ma ogtahay kursiga murasada ku fadhiyay kursiga murasada ku fadhiyay anaa ku fadhiyo you know that adiga murasada ma tahay ku dhahay bas isaaq oo idhahay Soomaaliland ay kuma goosid inta ka hadlaya dadka kacaya wax ka sheegay
maxaa leeyahay ninka la caayahay waa hawiye nima kale isku diraa waa hawiye waxaas camal wax dhegeysan kara ma fahantay yaa dowladda siyaasadda waa laga soo horjeesan karaa wax waa la dhihi karaa laakiin neefa horta su'aal rabana ku weydiiyo digaabiyuu iyo saamaante adiga mursado ma taa ku dhacay mi ihi waa hale kana mursado hawa ilaahay ga dhige bas waa taa soo ma ilaahay ga dhigaan ku dhahay okay waa mahsan tahay beesha mursade aniga qiimo iyo sharaf u haynaa waa beel Soomaaliyeed waa beel walaalaheen ah laakiin haddii komika ay dadkii madaxdooda ninka ahaa ay ku taageerayaan in dad la laayo oo la diyo sug okay isug okay komika isug in khayra dad laayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur weeraro Cabdi Qeydid la weeraro wiilasha Soomaaliyeed la dadka in la qaawiyo dadka dawladda la yahay soo in la kala xishoodo maaha soo in wiilkooda dhahan yacsaan ma qurux badna ila dalka dawladda fiiri aniga hadii siyaasadda oo iga dhageysan lahaa xasal qarado iga dhageysan lahaa ma jirta ya intaan darka idka si wanaagsan oo wada komika si wanaagsan oo cadii fadhiyo aniga maskaxdayda ku hadla koomta la kaskeyga ku adeegta qof aan una xaay ma jirto moogtahay teedan ku hadla laakiin aniga mid degdeg la xirta anagoo hiraab anagoo hebelo anagoo reebel maanta dhas ma lagu jiraa shagaashanka dhas ma lagu jiraa shaleed waxa isku haysteen no more abgaal aad daldalaysa hiraab daatiid hiraab madaxa ku hesheen xashiqo aan ka dheesay no more hiraab aad kalash ku baada ninda mursada waxa dheesay hadana no anaga hiraab waxa ku haysta malaniyo xasan sheekh aftarkiisa kuwa oo ka soo jeedo beesha abgaal ulashaas diidanaa nomor hiraab waa iska war kulay hiraab kale oo hadda cod haysta marka laga reebo in adeertiis ma jirin ilma adeertiisna waa diidanaayeen hiraab kale oo cod kala tagay xasan sheekh ma jira hada ii sheegtay war aniga hiraab kale yira horta hiraabka lagu sheegay ma jirta aniga dadba mu aqaan faanta wax dhintay aan aqaan faanta ada hiraab soo sharaxaan siyaasad gala ma buu aqaan ba kuweysta kuwa waa wada tuugo isnacday afkaas Facebook wax ina ka qoraan inay mataqaana ay isjalaafayaan ay yaqaanaan dadka jaanis iyo nimankan kara la hawi waa nima mursada oo isku taagan oo istaageersan oo saqiirkood iyo kawirkood maxaa la isgarab taagan waa dad soo dhisa kalbad iska soo dhisan yihiin boss maxaa ku dhacay adeero waa gartay adeerka ay soo dhisaan waa markay soo dhisaan dadka la imaadaan laakiin waxay soo dhiseen aniga naagtaas sideeda banaan aniga waa soo horjeedaa inay hiraab qofa komik wuxuu ku soo qoraya gabar oo Cabdi Macalin oo Ceesla kugu ogeey goorma mursado noqoto maqabil kala ka faanaysa qofa ku soo dhageyso Cabdi Macalin mursado inta waa isku anfant ilaahay iga dhig qofa ka tuuga malaani sabuurada lagu abtirsaya keentay kulay qofka aniga Facebook ee soo gala qabiilka ka rashto horo ka akhriya saaxiib banaanka taagana may waxay ku leeyihiin hooyadeeda ku abtirsoosa hooyada ku abtirsada hooyada soo iyada kama imaan waxa kugu dhacay hooyada aniga dhashay ina u heeli waa waxay ii dhashay waa soo moogid waxa kugu dhacay ma santa komik waa ma santa komik waa ma santa waxaan jeclaan lahaa qofka Soomaaliga ah barnaamijkeena waa gabagabo waxaan rabaa laakiin qofka Soomaaliga ah inuu isweydiiyo horta wax waan gabdho midka wareysanaya mid hadda wareysanaya mid ka horeysay afkaartooda fikirkooda ka hadli karaan wax u arkaan laakiin harna anaga ragaan nahay inaan anaga la jaan qaadin oo dadka qaar committee gabdhaha ku caynaya ceeb waaye adii nin raga tahay noqo rag karti leh oo awood leh marka karti leedahay oo nin raga tahay oo karaamadii raganimo leedahay gabar ina cays way xogaa waa laga yahay xogaa waa ceeb heblaay waa dhilay heblaay waa sharmuto xogaa adiga laftarka hadad gabar saas ku tiraa wax badan gabdhaha kama duwanid because ninka ragga ah kuma soo dhacdo inuu gabar caayo qofka kale aan rabo inaan ku xijiyo oo idil farmaajo in walaalkeed la dhashay hadafka ama fikirka ay ka aaminsan tahay qaabka aad u aragtid ayaan rabaa inaad sharaxdid haddaad gabar tahay haddaad wiil tahay marka yaa diyaar ah oo hadda soo qabtaa si aad qofka ugu dambeeyana waa qofkaas ha noqdo qof gentle ah lawaad daalacwad inaan life haya ha noqdo qofkaas qof aragti dheer leh ha noqdo qofkaas qof xikmad leh oo aqli ku daraya aragtidiisa haddii aysan noqoto laakiin hadda waxay ka dhawaajiso komiko dad isaaqa halkan ka cayta maayo isaaq waa qabiil Soomaaliyeed waa ma caqdeyn kartid qofka magaca u qoran qabiilka uu yaalla ma ogaan karo laakiin qabiil walbo meesha laga caayo horta waa ka raaligelinaa ciddii doonta ha cayso ciddii doonta ha u gafto waxaan leeyahay laakiin halkan waa xarunteeda waa xafiiskayga raalli ahaada marka ciise riyoole waa ku soo qabanaa inkastoo kaamirada inaad xirtid waa kugu dayay
mar labaad qofka ugu dambeeya adi waaye ciise riyoole aragtidaada oo nadiif ah ka hadal adaana kugu soo abjarayaa ciise riyoole haye asalaamu calaykum waa habeenkii labaad oo ku suurtagelaysa inaad live kan isku aragno waa aad uma sii badan tahay ciise riyoole nin oo aftahanna waa tahay bal ka waran ciisow nin walaashii dhaliishiisa og tahay isagana og inay dhaliishiisa og tahay oo aan raali geli karin familkiisa aan la xiriirin dal dhan ma maamuli karaa kulata xaqiiqatan walaal wejigaada ma aragno ciise riyoole wejigaada ma aragno wejigaada ma aragno riyaaq adi ma kusoo qabtaa haye aniga waxaan jeclahay qofka aragtidiisa si taariikhda uu galo warkan qofka wejigiisaan jeclahay qofka wejigiisa loo jeeda ay run noo sheegi kara marka waxaan ku yidhi ka waran su-aashaan ku weydiiyey xaqiiqatan horta waxa weeye haye yacquub siyaad waa maasan tahay haye halkaasay kaaga muuqataa ummadda soomaaliyeedna ay uga muuqataa maxamed haddii uu maamulkii gurigooda ka soo bixi waayey ma maamuli karaa malaayiin soomaaliya oo kale afkaar iyo aragti duwan waa midda keliya ee ay dadku ku qanci karaan maanta haddii uu walaashii oo ka soo horjeeda aragtidiisa qancin kari waayey ma qancin karayaa soomaali kale oo ka duwan oo kala aragtiya oo qaarba wax kula dagaalsan yihiin waa su-aasha waxa weeyaan dadku ay tahay inay halkaa jawaabta ay ka helayaan waa 2500 ayaa toos noo daawadaysa ciise waxaan u dhaaran karaa inuusan jirin qof ku raacsan fikirka ah farmaajo in walaashiis ama familkiisa la xumeeyo haddana bulshada uu soo hor istaago uu dhaho dalkan ayaan maamulaya xasiloon ku keenaya nin kobihiisa tole yihiin ayaa kobaha loo dhiibtaa horta nin kobihiisa hagaagsan yihiin ayaa koba kuu tali karaa marka ninka noocaasa adiga waxaad leedahay soo maa waa nin aad u fashilo marka maxaa naga istaagilaa ila xukunka hadduu qabtay muxuu naga istaagilaa anaga shacabka maxaa la gudbay xaqiiqatan waxa weeye bal meel baan wax yar kaa tusaya adiga iyo bulshada kaleba adoo soo koobaya waqtigoona haya haye walaasha ama hooyadu waa waxa ugu beerka nugul ee ugu waxa weeye naxdinta badan leh haddii aad naxariis yar tusto naxariis yar oo 1 minute haddaad tusto wax allaale iyo waxay ku leeyahay ilaaway waa kugu raacsanahay waxaan ku leeyahay ninkani walaal ma kasban karo Soomaali mana maamuli karo hadduu cid kasbanayo walaashii ma kasban lahaa iminkana sida halkaa kaaga muuqata anigu waxaan arkaa xaqiiqatan qofku waxa uu walaalkii kula culoobi karaa waa wax fog oo weyn waxaan isleeyahay inantaasi wadaniyad qiimo iyo qiiro fara badan oo iyada ku jirta wanaag ku jira ayaa heerka gaarsiiyay iyadana isagana waxa weeyaan walaashii unbaa inoo sheegtay waxa uu yahay aynuna ka aragnaa marka bulshada Soomaaliyeed anigu waxaan leeyahay bulshooy indhahaaga ku macallina dhagahaagaad wax ku maqlaysaa go'aankanu maskaxdaadu ku jira that's it waa sax waa tala fiican intaasaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawa oo aragtiyo fara badan laga dhiibtay intii la wadaagta saaxiibadood intii fikir ka dhiibatay waan u mahad celinayaa qofka ugu dambeeya ciise riyoole ah oo barnaamijkan iga qaatay waana habeenkii labaad oo si toos aan soo helaynin waxaan leeyahay aad u maasan tahay sidoo kale idil cabdulaahi farmaajo oo barnaamijka igala qayb qaadatay hodan komiko oo reer Finland ana waxaan leeyahay thank you very much waqtigeena qaaliga ah intii la wadaagta saaxiibadood intii aragtidooda dhiibatay iyo afkaartooda intii si kale u aragta wax hanaga raali ahaadaan sidoo kale waxaan rabaa inaan si qaasa ugu mahad celiyo saaxiibadeeda qaaska ah ee barnaamijkan la wadaaga saaxiibadood ee barnaamijkan u arka barnaamij muhiim ah oo bulshada lagu wacyigelinayo tan inta barnaamij noocan oo ku kulmi doono waa saaxiibkiin boosko idin leh sidaa iyo nabadgelyo